iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka socotay imtixaanaadka teeramka ee jaamacadaha u fadhiisanayeen ardayda dhigata ayaa maanta waxaan kormeernay mid kamid ah jaamacadahaas oo ka socotay maalintii ugu dambeysay imtixaanaadka teeramka ee ardaydu u fadhiisanayaan. Jaamacadda Summerfield oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn Muqdisho ayaa qayb ka ahayd ardaydii maanta u soo dhameysay wajigii koowaad imtixaanaadka jaamacadaha dalka. Jaamacadda Summerfield oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka ayaa qayb ka ahayd ardaydii maanta u fadhiistay imtixaanaadka jaamacadda. Ardaydaas oo aan la hadalnay kahor intaysan u fadhiisan imtixaanaadka ayaa dareenkooda waxay ahayn sida tan. Ardaydu wax ka barata jaamacadda Summerfield oo hadda aad arkaysaan waxaan ka bartaa kuliyadda Adib wa Jaraax ama Medicine and Surgery. Masha Allah maanta oo taariikhdu ay ku asaysan tahay 13 bisha November 2018 marka waxaan gali doonaa insha Allah imtixaankii marka midtermka ahaa ama nisbul caamka ahaa insha Allah sida aan rajaynayno bisha December ama Janaayo kuugeed lawgeedana insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan marka aan dhameeyno finalka imtixaanka anigoo marka hadda maraya semester 7 oo marka ardayda medicine ka qalin jibin doonto insha Allah sanadaha soo socda la yiraahdo kuliyada aan barto waa Medicine and Surgery waxaan ahay semester 7 maanta oo taariikhda ay tahay 13 bisha 11aad sanadda 2018 insha Allah waxaan gali doonaa mid kamid ah maadooyinka aan qaadan oo pediatric marna insha Allah imtixaanka uu soo gabagaboobi doonaa. Waxaan bartaa Medicine and Surgery waxaan ahay semesterkayga waa semester 5 waxaan galayaa maanta u fariisanayaa last day examkayga waxaan gali doonaa maanta maadada clinical examination ah runtii aad baan u faraxsanahay jaamacadda Summerfield teeramka exam teeramka aad baa u soo qabanqaabisay farxadaan ku dhameysanaynaa maanta mid teeramka waa maalintii noogu dambeysay waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Jubbaland aadin u mahadsanyihiin. Dr. Cabdisamed oo ah madaxa imtixaanaadka ee jaamacadda Summerfield ayaa Jubbaland TV ugu waramay halka ay u marayaan ardayda imtixaanaadka iyo waxyaabaha ugu dambeeyay laga rabo kahor intaysan dhameysan jaamacadda. Waxaan noo bilowday imtixaankii midtermka sida caadiga jaamacaddu waxay qaadaa laba imtixaan midterm iyo final. Semester kasta waxaan qaadnaa laba imtixaan. Imtixaanka hadaan u joogno maanta waa imtixaankii midtermka. Wuxuu soo bilowday 8 November. Wuxuu ka dhacay imtixaanka ilaa iyo 3 campus ku yaalo waxaa la yiraahdaa Beledweyne iyo 2 campus oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan Warta Nabadda iyo degmada Hodan zona Zobe. Imtixaanka waxaa gashay arday aad u fara badan 3 campus oo gaaray 5500 arday. Tira ahaan way kala duwanaayeen gabdhuhu waxay ahaayeen 3853 gabdhood ayaa galay imtixaanka halka wiilashu ay ahaayeen 1647. Imtixaanka sida caadiga waxaa noo bilowdaa 2 saac subaxnimo ilaa ay wuxuu socdaa 5 galabnimo maxaa yeelay waxa waa 4 shift waaye ama 4 xilliya la soo galaa oo ardayda aad u fara badan awgeed. Cabdikariin Shadane, Jubbaland TV, Muqdisho.